بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجكي دالينتا برنامجكان oo toddobaadla ah toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa dhalinta iyo doorka nabadda. barnaamijkan caawa waxa igu marti ah Maxamed Axmed Cabdi waa supervisor safaaradda Soomaaliya ee wadanka Kenya. Cabdullaahi Aadan Cali waa nin dhalinyaro Soomaaliyeed oo culumta IT-ga bartay. waxa kale oo inoogu marti ah Xamse Yusuf Aadan waa engineer ka socda X5 designer. kusoo dhawaada barnaamijka. su'aasha koowaad ee caawa rabno inaynu ka falanqoonno waxa weeye dhalinta Soomaaliyeed iyo doorka ay ka qaadan karaan dhalinyarada. Maxamed sidee u aragtaa arrintaas? aad iyo aad harta xumaasan dhammaan dhalinyaradan kala soo gashay barnaamijka xasan oo daadiinaya iyo dhammaan baxdan TV-ga kan Soomaalisat. intaa kadib arrinkan ah dhalinyarada doorka ay ka qaadan karto nabadda run ahaantii waxay ka qaadan karaan arrinkan door muhiim ah. ifan markaan eegno maanta dhalinyarada Soomaaliya joogta waxaan oran karaa waxa ugu badan ee wax qasa ama matalan dil dhac waxa ugu badan dhalinyarada badanaa ma jiraan sidaynu ognahay dad waayeel ah oo sameeya matalan waxa la yiraahdo maanta dhac ama dil sameynaya, laakiin badanaa dadka la adeegsadaa waxay badan yihiin dhalinyarada ha noqoto hadday noqoto dil hadday noqoto dhac hadday noqoto waxyaalaha badanaa Soomaaliya ka jira si kastaba way kastaba ha lahaadeen kufsi ha noqoto ifan dhac ha noqoto dil ha noqoto kufsi ha noqoto isqarxis taasna waxyaalaha sababaya sometimes waxa kamid ah aynu oran karnaa matalan shaqo la'aanta dadkii oo mid aan lahayn shaqo dadkaan lahayn aqoon ifan marka haddii ay dadku maanta waxay u qaadan karaan dhalinyaradu arrin muhiim ah oo badan bay ku leeyihiin baan lagu oran karaa. haddii waxaad tiri dhalinyaradu dil iyo dhac iyo kursi bay geystaan, sidee baad isleedahay Maxamed dhalinyarada waa looga wacyigelin karaa ama sidee baad isleedahay dhalinyaradu waa loo bedeli karaa arrinta looga bedeli karaa? ifan taa waxaan oran karaa ifan aniga hadleerta oo kaleeto dadku waxay leeyihiin matalan waayeelku wuxuu u sheegi karaa ilmaha wax wanaagsan iyo wax xun. wuxuu samayn karaa weeye badan oo ugaga badbaadin karo dhalinyarada waxyaalahan xun ee ku dhaqmayaan. ifan hadda waqtigii horeeto oo kaleeto dhalinyaradu way jiri jirtay. ifan waxaa jira waqti aanay dawlad jirin gumeystayaasha oo kaleeto dhalinyaradu sometimes waxaa loo sheegi jiray dhaqankeenu suu yahay suu dhaqmo. ifan waxaa loo sheegi jiray qofkani waxa uu yahay barmigeedada qofka matalan qofka kan waa barmigeedo qofka waalidka qofka waayeelka macalinka nin walba ninka aqoon-yahanka wuxuu mudan yahay qofka xididka waxyaalaha jir la isku xirin jiray. ifan waxyaalihii asaasiga ahaa ayaynu oran karaa maanta meelaha ka baxay. dadkii waxay noqdeen dad wada qowlisataa sometimes dhalinyaradii waxay noqdeen dad hubaysan. marka waxaa jira sometimes anigu waxaan lahaa waxyaalaha looga saari karo in dadkii loo sameeyo dhulal ay wax ka bartaan ifan farsamooyin ay ku shaqaystaan. ifan maaha inuu qofku iskuul kaliya helo, laakiin waa ifan inuu helo technical uu ku shaqaysto ha ahaado sida matalan furniture-ska nijaaradaha ha ahaado waxyaalo kaleeto dadkan sameeya ifan qofba waxa sameeya qof ahaado wastaa dadkan matalan daaraha dhisa ifan qof ahaado boorta wax dadkan xamaaliyiinta ifan dadkii haddii loo sameeyo shaqo ay ka mashquulaan dhibtan ay gelayaan waxaan oran karaa waxaa loo heli karaa daawo fiican. anigu taasaan ku oran lahaa. aad mahadsan Cabdullaahi, adigu sidee u aragtaa dhalinta iyo doorka nabadda? bismillahi raxmaani raxiim. aad baad mahadsantahay xasan. run ahaantii barnaamijkan waa barnaamij aan wada sugaynay, waa barnaamij runtii qiimo badan leh, waa barnaamij runtii aan oran karo maanta dhalinyaradii macnaha dunida ku kala caariday ku kala mashquushay macnaha dana kale iyo waxyaalo fara badan aan hadda soo koobi karaynin inay maanta ay heli karaan macnaha meel mowqifkooda fikradooda waxay aaminsan yihiin ay kusoo gudbin karayaan. runtii barnaamijkan soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay. haddii aan yacnihii barnaamijkan dhalinta loogu talagalay in dhalinta fikradooda lagu weydiiyo caawa weliba ay diiraddu saaran tahay sida ay uga qayb qaadan karaan nabadda Soomaaliya. nabadeyntu dabcan wax sahlan ma ahan, waa wax yacnihii ku fadhiya macnaha qiimo aad u weyn.
waa dareemi kartaan marka nabad la helo ayaa nabad ayaa nololna la helaa. waxaad moodaa meel kasta iminka markaad eegto tviyada badanaa soomaalida ay leeyihiin waxa fadhiya waa odayaal, hadduu aqoon-yahan yahay ama hadduu macnaha siyaasi yahay iyo hadduu madax yahay waa nin weyn oo da-weyn un. waxaad moodaa in la ilaaway raggii yacnihii ubaxa ahaa ee wadankan macnaha mustaqbalkooda lahaa ee la rabay macnaha aqoonta iyo waxa ay soo barteen inay dib wadankooda ugu soo celiyaan in la niyad jabiyey oo laga dhigay macnaha dad aan loo baahnayn oo kale. waa dareemi karaysaan faamilka oo kale aabaha markuu wuxuu yahay hogaamiye wuxuu hogaaminayo caruurta wax u barayo oo macnaha uu u barbaarinayo oo wax wanaagsan uu u tusayo wuxuu dareemayaa inuu macnaha isagu u yahay qofka weyn ee ka tegaya macnaha faamilkaas marka ugu horeysa. waa sida macnaha qadarta rabbi waa gooniyood wax laga yaabo inay kuwa kale ay kaga hormarto, laakiin sida caadiyanka ah aabaha wuxuu saa u yeelayaa macnaha waa caruurtii mustaqbal ha hesho. sidoo kale waxaan jeclaan lahayn macnaha siyaasiyiinta iyo aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed oo kale inay yacnihii ay u gogol xaaraan sida ay dhalinyarada macnaha uga qayb jaanis ay u siin lahaayeen nabadda iyo doorkeeda iyo xaaladeeda markaas ay yacnihii ay fikirkooda iyo wixii kaga aadisan inay soo gudbiyaan. waxaan odhan karaa run ahaantii maanta waqtigan la joogo dhalinyarada dabcan waa dee dhalinyarada haadaan baa inta laga tuuray bay kasii dhacaysaa. haddii aan la daba qabanin wax walba dee caano qabtay dabadeed laqooda layidhi, haddaan la daba qabanin dabcan ma soconayso. nolosha dhabta ah iyo mustaqbalka dhabta ee dhalinyarada ay leeyihiin ama wadankan ay kusoo dabaali karaan ma la heli karayo. waxaan kusoo gabagabayn lahaa fikradda macnaha ereygayga koowaad horta waa jaanis in la siiyo dhalinyaradii. dhalinyarada Soomaaliyeed dareemisa iskuma duubna, dad isku duuban ma ahan. hadday laba qof meel isugu timaado dabcan danahooda gaarka bay ka wada hadlaan. hadday yacnihii ta guud ee caamka ah laga wada hadli lahaana nin walba hoosta waxay u guntan yihiinoo qodobaa maxyar inta uu sameeyey ama wax ka dhacdhacay tiibaa loogu yeeray tiibuu aadayaa. dantii guud la rabay in macnaha dadka ay midayso baa lagu kala tegsan yahay oo dhalinyaradii waxay noqdeen macnaha dad la kala ququbo oo la kala furfuro oo si kasta oo loo kala furfuri karayba hadday siyaasad ahaan lahayd hadday qabiliyan ahaan lahayd macnaha lagu furfuri lahaa lagu kala. marka waxaan odhan lahaa horta ko waa in macnaha la helo dhalinyaro midaysan. dhalinyarada marka ay midoodo kadib waxaa la heli karaa macnaha in ay macnaha u ordaan oo u kacaan inay iyaga laftooda haddii jaaniskiiba loo diiday in la siiyo inay iyaga xaqooda raadsadaan. cabdullaahi waxaad ka dhawaajisay inay dhalinyaradu ka qayb qaadan karto nabadeynta Soomaaliya. waxaynu ognahay dhalinyaradu in ay tahay dhibaatada ugu badan ee Soomaaliya ka jirta waxa ka qayb qaata waa dhalinyaro. waynu ognahay dadka ugu sarsareeyay inay dad waaweyn yihiin, dad siyaasiyiin yihiin, laakiin waxa ficil ka geysta waa dhalinyaro. waxaynu ognahay waxa dadka laaya waa dhalinyaro, waxa la dilo waa dhalinyaro. sidaad la socoto waad ogtahay arday dhalinyarada la laayay, arday bay ahaayeen, dhalinyaro ahaayeen. ma ahayn waxa loo socday waxay ahaayeen in dhalinyarada yar ee aqoon-yahaniinta ay wax raadinayeen in la laayo. kuwii laayana isla dhalinyaro isku da' yihiin oo isla ayagoo kala ah baa laayay. marka sidee baynu uga bixi karnaa oo dhalinyarada loo fahansiin karaa in haddii aynu nabad helno ay dhalinyaradu jaanis heli karaan? waa ku mahadsantahay xasan su-aashaada qaaliga ah. sidaan kuu sheegayba yacnihii hadday dhalinyaradii marka hore ay kala quban yihiin dabcan way adag tahay yacnihii sida macnaha horta marka hore loo helo dhalinyaro midaysan. sida aan taariikhda Soomaaliya inta badan lagu xuso mar kasta la soo qaato marka laga hadlayo macnaha dhalinyaro waxaa koow ka ah dhalinyaradii SYL la oran jiray. SYL dabcan dee wuxuu ahaa yacnihii wadan gumaysi waqtigaas haystay oo yacnihii culays fara badan iyo cadaadis fara badan uga imaanayay. cadaadiskaas darteed ba waxay uga faa'iidaysteen inay macnaha ay helaan macnaha isku duubni. annaga yacnihii cadaadiskii sare ee gumaysigii sare waxaa moodaa si dadban inuu wadankii ugu jiro oo hadda macnaha wadan gooniyo caada macnaha wadankii gumaystaa ma jiro. xaqiiqatan waxa meesha hadda yaala waa yacnihii waa Soomaaliya oo kala quban oo qoys u kala quban oo yacnihii gobol u kala quban. gobol kastana macnaha odayaashooda ama siyaasiyiintoodii yacnihii dhalinyaradii waxay ka dhaadhiciyeen
ama ay markasta ay u tusaan yani inay qolyaha kale aysan wax la wadaagin matalan haddaan tusaale yar soo qaato inkastoo dowladda Soomaalida ay federalism ay ku dhisan tahay haddana in fact waxa meesha ku jira weeye waxa inta la sameeyo maamuladan faraha badan leh ee la sameeyo waxa loo sameeynaya oo loo qaban qaabinaya ee dhex ordaya ee intaas ku dhex howlan ee dhiigoodii iyo dheecaankoodii qarashkoodii waqtigoodii ku lumay waa dhalinyaro ma fahansan yani iyaga yani waxa dhabta ah ee waxan ee waaqaca ay taaban karto mustaqbalka dambe iyo macnaha waxa ay ka faa'iidayaan laakiin waxa loo arkay macnaha maamul baan anaga samaysanay waxaas waan ka warxumahay inaan macnaha barnaamijkan siyaasadda soo dhexgeliyo laakiin waxa meesha wax yaalo weeyaan dhalinyaradii hadii loo kala ququban yahay macnaha oo la kala ququbayo oo oday kasta iyo macnaha nin kasta oo siyaasi macnaha isku sheegaya oo yiraahdo intan anaga is ah anaga wax samaysanayna anaga macnaha noqonayna maamul waxa la helaysaa macnaha wasiir baa lagu magacaabaya waxa lagu magacaabay qaadada qofka loo sameeyo macnaha wuxuu ku dadaalaya inuu ordaya waqtigiisa iyo juhdigiisa ku bixinaya sidii uu macnaha barnaamijkan maradalkiisa uu heli lahaa hadii dhowr shay ama dhowr maamul saaso kale loo kala waxa dareemaysaa dhalinyaradii oo qaarna xag u guurayaan qaarna xag u guurayaan way adkaanaysaa macnaha dhalinyarada noocaas oo kala in marka si sahlan ama waqti kooban lagu mideeyo waxa oran karayaa macnaha midnimadu wax ka wanaagsan ma lahan marka midnimo la helo ba wax kastana la heli karayaa dhalinyarada waxay u baahan tahay macnaha waqti macnaha aad u badan طبعا sida aan kulay fikradeyda aan ku cabirayo waqti aad u badan oo lagaga dhaqo yani wax allaah wixii dhibaatooyinkii ku soo dhacay wadankan ee taariikhda qof kasta ee sida xun ugu reebtay oo qofka kale uu gudbinayay ee qalbigiisa u fariisanaysay si looga dhaqo oo looga nadiifiyo horta waa in waqti loo helo kadibna loogu abuuro fikrad saliim ah oo keeni karta isku duubni midnimo marka la helo ayaa waxa la heli karaa nabad iyo macnaha in macnaha laga wada hadlo ay u ordaan dhalinyaradii inay macnaha qayb ka qaataan nabadda Soomaaliya imikana waxaan kusoo dhaweynayaa bal Xamse in uu asaguna fikradiisa ka dhiibso dhalinta iyo doorka nabadda bismillaahir rahmaanir rahiim xasan waad ku mahadsan tahay programkan loogu talagalay dhalinta Soomaaliyeed waa mid aad muhiim uga ah dhalinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xataa Soomaaliyeed maahan dhalinta Soomaaliya Kenya ku jirto wuxuu yahay arrin aad iyo aad waxtar u leh because waxay ogaanayaan inay dhalinyaro jirto dhalinyaro wax isla qabsan karta inay jirto waxaa jirto dhalinyaro kala duwan oo meelo kala duwan ee wadanka Soomaaliya ka imaadeen laakiin wadanka Kenya ku barbaareen oo soo haystay inay Soomaali ahayn ee Kenyan yihiin dhalintaas bay aad u anfacaysaa u taabanaysaa haddii aan u soo jeesto midda kaleeto doorka ay ka qaadanayso dhalinta nabadda Soomaaliya waxa weeye mid aad muhiim u ah maanta Soomaaliya xaaladda ay ku sugan tahay cidda gaarsiisay waa dhalinyaro waxa ay u baahan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed inay ogaadaan hal midaasoo ah weligood inaysan ahaanaynin dhalinyaro waqtigu waa qaali aad buu muhiim yahay wuu ku dhaafayaa maanta hadday ku dhaafto berri ma kusoo laabanayso dhalinyarana ma ahaanaysid ejkaadi isbedelayaa marka dhalinta Soomaaliyeed waxaan aad uga faa'iideyn lahaa inay ka faa'iideystaan waqtigooda dhalinyaranimo oo ay sameeyaan hoogi caawinaadooda because nin kasta oo maanta dhalinyaro ah wuxuu niyadda ku hayaa oo ugu muhiimsan oo the most important thing oo niyaddiisa ku jirto inuu reer abaabusho reerkii aad maanta abaabulinaysay xagguu kugu korayaa xagguu kugu nabadoonayaa nabad xagguu ka heliyaa haddii aad tahay adiga midka wax qarxinaya ama midka wax dilaya ama midka wax kufsanaya ama midka wax dhacaya ama midka wax u hoosaysanaya mid kaleeto waxaa la rabaa dhalinta Soomaaliyeed inay helaan faktiga runta ah the real fact inay helaan la rabaa oo ay qalbigooda u sheegaan maanta xaaladda ay ku sugan tahay Soomaaliya haddii aad fiirisid dhalinta Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Kenya maanta waxaad arkaysaa
dhalinta kasoo joogto wadanka Soomaaliya ee wadankan joogto waxay helayaan dhibaatooyin aad u badan waxaana keenaysa nabad la'aanta wadankooda ka jirto haddii aan fiirino majority-ga dhalinta Soomaaliyeed ee maanta ku nool wadanka Kenya waa meesha aan hadda xaadirka joogno ee aan ognahay reality ka jirta dhalinta Soomaaliyeed waxaad arkaysaa inay 90% ama 95% yihiin niman aanan shaqaysanaynin mustaqbalkooda ka fakaraynin qaad u fadhiyo inay qaylaan u fadhiyo waxaa rabaa ninka dhalinyarada ah waa meesha ugu fiican yahay maskaxdiisa maalinkaas maskaxda wixii aad gashatid iyo weliba ku jirayo haddii tusaale ahaan aan soo qaadano waxaa jirto qofka wuxuu leeyahay hamiga qofka dhalinyarada ah wuxuu bilowdaa waqtiga u yahay dhalinta wuxuu qofka go'aansan karaa ama uu niyeysan karaa wixii uu mustaqbalkiisa noqon lahaa dhalinyarnimadiisa hadduu noqdo inuu rabo inuu noqdo doctor wuxuu niyeysanayaa dhalinyarnimadiisii dan wuxuu isku dayaa inuu wax barto uu dhakhtar noqdo uu heer gaaro marka dhalintu waxay tahay waa xubinta ugu muhiimsan ee qof kasta ee bini'aadan ah waana wax aad iyo aad muhiim u ah haddii aan ka hadla dhalinyantii Soomaaliyeed oo isku dhan meel kastoo adduunka joogaan haddaad aragtid dhalinta laga keenayo dibadaha Canada North America Europe waxaad arkaysaa waxaa imaanaysa dhalinyaro shaab ah laakiin haddana waxaa ka maqan wax badan yaa ka maqan oo moraal ahaan ka maqan niyad ahaan waxaa sabab u taas dhalinta Soomaaliyeed oo aan aqoonsanayn kartida ay leeyihiin ayaan ka aqoonsanayn yaa ka imaaday waxaad leedahay karti dhan kastoo dhalinyaro ah waxaa la rabaa kartidaada inaad aadan qasaarinin niyadaada waa inaad u sheegtid wadankii Soomaaliya qofku u baahan yahay inaad tahay meel kastoo adduunka ka tagtid waxaa lagu leeyahay Soomaali wax kale tamariid haddaad Kenya joogtid xamse haddaan kaa dhex galo sidaynu ognahay oo dhalinyarada markaad la sheekaysato aad ku tiraada ka waran arrimaha Soomaaliya maba jirtaba dhalinyaro ku haminaysa in ay Soomaaliya dib ugu noqoto dhibaatada kale jirta waxaa weeye dhalinyaradu ma arkaan inay wadan leeyihiin dhalinyaradu markaad la sheekaysataa nin walba wuxuu kaaga sheekeyn lahaa siduu Northern America ku gaadhi lahaa ama Europe ama wadamada western countries lagu magacaabo sidee aad adigu xamse ahaan aad dhalinyarada fikirkooda u bedeli lahayd oo aad dhihi lahayd wadamadaas oo dhan waxaa idiga fiican wadankiina hooyo والله وأرين آد important جوا مادي أن كسر هذا خاصة أنا جو حمزة وهنا يميل دليل سوماليات بناهي كبر بارتيو دنك كينيا لكن عن أن سنة ما أنت إيش كي أنكو قاتي دنك كينيا هدي أنكو قابل لها سوماليا إن أهل لها هير كفي عن هير كان أنت أنجو كوسو عن هير لها وحبرش يقفلن waxbarasho ugu filan oo heerka maanta dadka waxbarashada heerka ka gaaran ka gaari lahaa dad waxaa jiro u maleeya waxbarashada inay tahay only qalin iyo buug wax lagu qoro maahan waxbarashadu waxaa waaye caqligaada saliimka ah oo aad ka dhaadhicisay wax fiican inaad ku dhowlaatid nolol fiican inaad heshid maahan inaad iskuul ka soo baxday keliya waxaa macnaha taas uga dan leeyahay dhalinta Soomaaliyeed wadankan waxay ku barteen intooda badan intii ninkii qaxooti joogay xariiqo qaxootigiisku ma ka furan markuu secondary soo dhameeyo waxaad arkaysaa soo qaadanayo ama soo iska daraagaysa ama soo ku dhahay adduunkan wax jira ma ahaanba waa shalay maxaad wax baranaysay macnaha waxbarashada aan u daleeyahay waxa waaye qofka inuu moraal ahaan uu u dhismo markuu uu Soomaali yahay oo ka duwan yihiin dadka kaleeto dadka kaleeto waa dad isku tasto laakiin Soomaali ma dad isku tashanay Soomaali ninka Soomaaliga ah ama dhalinta Soomaaliga hal mid ay niyada ku hawa waa inuu kaligiis u xeelo maanta hadii kaligaa u xeshid bariyaad ka fiirinaysaa ma xilna laga faa'iidin soo xataa dhalinta Soomaaliyeed baa tahay walaalka Soomaaliya jiro u baahan inuu wax ka faa'iideysto waxna faa'iiday waxna ka faa'iideyso mustaqbalka dambe awlaadnadi iyo wadankanagi
aan wax u barano ama wax u samaysano nabadda soomaaliyeed waxaan ka samayn karnaa heer aad u sarreeya walaalkii cabdulaahi wuxuu soo hadal qaaday dhalinta soomaaliya ku leh taariikhda aadka u weyn ee SYL maasha allah allah u naxariisto dhalintaas waxay ahaayeen dhalin nolosha ka dambeyn doonta ayaga waqti dheer iyo nolol ayaga ay noo keeneen oo wanaagsan aan ku nooleen maxay dhalinyarada soomaaliya u diidan inay sidii u fakereen nimankaasi u fakereen ma ahayn niman laga waaweyn ma ahayn niman fikrad meel kale kala imaaday idan ma ahayn niman knowledge meel kale ka helay ama waxbarasho ama aqoon ama experience wadankana inay tagaan ka saareen ma ahayn xamse aad baad u mahadsantahay waan kugu soo noqonayaa mahadsantahay cabdulaahi aad baan u xiiseynayaa programkan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada soomaaliyeed somalisat waxay idin diyaarisay opportunity aada u weyn waxaana ka rajeynayaa waa open weyn qofay ka xiran tahay malahan dhalinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xataa insha allah mustaqbalka dambe waxaan isku daynaa programka inaan ka dhigna mid live stream oo adduunka dhan meel kasta ay dhalinta joogta inay la soo xiriiraan somalisatna aada bay ugu mahadsan tahay arrintaas ay u qabatay dhalinta soomaaliyeed xamse waa kugu soo noqonayaa maxamed mar dhowd waxaad ka dhawaajisay inay dhalinyaradu u baahan tahay in waxbarasho la siiyo shaqooyin la geeyo opportunity loo sameeyo waxaynu ognahayba in ay maasha allah horta dowladdu way inoo jirtaa laakiin dowladdeenu maanta kama wada taliso wadanka soomaaliya awood maanta dhalinyarada soomaaliyeed ay ku hesho arrimahaad ka dhawaajisay sida waxbarashadoo kale mataqaanaa shaqooyinkoo kale sidee baad maadaama aan dowladba wadankii ka jirin sidee lagu heli karaa shaqooyinka iyo waxbarashada aad ka dhawaajisay haddii aynu eegno taas opportunityga maanta aan muuqan ifan adduunka wuxuu isagoo aan muuqan baynu xoran karaa waa la samayn karaa sabos waxaanu soo qaadan karaa matalan adduunka maalba meel buu joogaa maanta oo kaleeto waxaa laga yaabaa waqtiga inagu waxbarashada free ku baranayna matalan oo kaleeto dalkeenii kenya oo kaleeto waxaa laga yaabaa in waxbarashadu ahayd aada u liidatay oo dadku ay ku baran jireen free ilaa jaamacada haddana ayagu aqoon iyo waxbarasho wax walba ay helaan sometimes saynu ognahay secondaryadooda waa free dugsigooda dhexe iyo waxyaalahaas sometimes jaamacadahan free u ahayn inaguna waxaa laga yaabaa inaynu waqtiga horumaraynu ka gaadhnay inaynu xitaa caafimaadka free u noqdo wadamada hadda horumaray baa arrimaha gaari kara matalan suppose matalan maraykan oo kaleeto waa laga yaaba caafimaadka wadamada qaarkood ingiriiska oo kale inay waxbarashadu free yihiin waqti inagu hore baynu gaadhnay inagoo waqtiga halkaa gaadhnay baynu waxaanu samaynay inaynu dib ugu noqono meesha aynu ka nimin waqtigii kasii hor waqtiyadii gumaysiga meesha aynu ka nimin inaynu ku noqono maanta taana anigu waxaan oran karaa dhalinyaradu iyadaa keentay maanta iyadaa keentay haddana waxaa la oran karaa iyadaa ka bixi karta suppose waxaanu kasoo qaadan karaa matalan maanta oo kaleeto dhalinyaradu haddii ay maanta joojiso waxyaalahan iyadu ay fahanto noloshan qiimaha ay leedahay ay joojiyaan dilkan dhacan uu qorigan u sito uu isagu wax ku dilayo ama lagu dilayo uu joojiyo ifan waxa kan oo dhan way imanayaan waxaan imanayaa marka la helo stability iyo deganaansho kala deganaansho oo wadankii kala dego nabad la helo wax walba sidoodii hore kusoo noqonayaan laakiin dhalinyaradii haddii aanay maanta arrintii iyagu dejin ay arrintii kusii dhex jiraan dabada kasii wadaan waxay noqonaysaa arrintaasi arrin weligeed aan degin waxyaalaha badanaa sababayana dee waynu ognaho dalkiina wuxuu noqday dad wada burburay dadkii waa la qaybsaday ifan sometimes wuxuu qaybsamay dadkii hebel waa siyaasi hebel kale waa siyaasi in hebel bay ku daba safatay in hebel bay ku daba safatay in hebel bay ku daba safatay in hebel dadkii waxa la ilaaway dadka kan dhalinyarada laftigoodii waxay ilowday iyada faa'iidadeedii way ilowday war adigu maxaad noqon kartaa intaan hebel ku daba safan sidee adigu wax noqon kartaa bay ilowday ifan taasna waxaan noqon karnaa maanta waa arrinka ugu muhiimsan ee maanta ay dhalinyaradu u baahantay inay fahanto say iyadu wax u noqon kartaa dhalinyaradu sawga hadday siyaasiya noqoto hadday cilmiya noqoto waa la helayaa dhalinyaro fiican oo cilmi leh oo dadkii u faa'iideeya laakiinse iyaga laftigooda waxaan helay fursaddii dadka loogu faa'iideyn lahaa anigu taasaan oran karaa baa sababtay in maanta ay soomaali
maalin walba hoos sii dhacdo. ta kaleeto dhalinyaradii maadaama markay dhacday shaqo la-aan iyo aqoon la-aan iyo sometimes jahli, gaajo, abaar, ifan waxay noqdeen in carara in qori qaadata, in cararta iyo in qori qaadata. ilmaada waa dadkii sometimes waa inta qaylaysa. marka anigu waxaan lahaa kulli dhalinyarada marka hore doorkeeda waa inay fahantaa. haddii inuu doorkeeda fahanto oo ninkaas maanta ku tashado inuu gaaro darajo wuu gaari karaa. laakiin dhalinyarada waxaan fahansanaa doorka iyadoo waxay aragtaa sometimes dhalinyarada waxaa ku shaqaysanaya dad yar oo fikiraysa baa laga yaabaa inay ku shaqaysanayaan. ay matalan yirahaan waxaa dil samee nin u diraan waxaa samee qardhac samaynayaan oo dad fikiraysa leefkooda ku ilaashadaan ku shaqaystaan. anigu taas oran karaa baa hortaagan. laakiin waxaan la anigu maanta waxaa loo heli karaa dhalinyarada taas iyadoo dhalinyarada joojisa waxyaalaha kan dagaalka xabadda waxaan oo dhan oo fahanta dawladda naftan qiimaha ay leedahay. qofkan inuu noolaado qiimuhu leeyahay. qofka hadduu noolaado qiimuhu leeyahay, laakiin hadduu dhinto qiimo male waa meyd ifan. marka waa inay fahantaa dhalinyarada marka hore noloshani faa'iida ay leedahay. ay dhayaan qorigan iyagoo ay ridayaan, nina soo ridayo nina lagu ridayo. taasaan oran lahaa baa lagu gaari karaa horumar iyo kala dambeyn. maxamed siduu cabdilaahi horey uga dhawaajiyo kale wuxuu yiri dhalinyarada waxaa xal loo heli karaa in la mideeyo. sidee baa adigu kula tahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu mideyn karaa? horta arrinkaas maanta ma oran karo maanta arrin muuqda oo toosa arrinkaasaan maanta ku mideyn karaa. laakiin waxaa jira sometimes waxyaala uu keeno wacyigu مثلا وصحره وقت قفك إفن قفكني هذا ما أنت دن أرض وحلا إنه داله أنا قلنا أنت وحنا هاي وحلا شو وقتي إنه دالي ما أنت إنه أقال لهين إنه كفى إيدي السنة وقت كنا تنبيه دمان مركا أنا وحنا لها مدينت وحيكون إيمان ساعة لأن يراد والله سميه برنامج النوع أنا كلا وعي قليل إفن سيدا مثلا barnaamijyadan oo ah taabanaya dhinacyada matalan dhalinyarada ka dhiman focuskana saaraya waxyaalaha dhalinyarada u baahan tahay kana reebaya waxyaalaha xun ee dhalinyarada markaa ku dhaqmayso. anigu waxaan kala taasoo lagu heli karaa oo laga wacyi geliyo dhalinyarada ifan matalan la safashada qof ay matalan la safanayaan maanta kale wax laga qaqable ciidan u yihiin dhowr boqol oo dhalinyaro u yihiin oo maanta halka wax ku soo laayay wax ka soo leynayaan أنا فهمين بوجودي الله ليني وحكم ما أنت أكو رهاني وحكي عن صار عنا أي مثلا يا عام دور بقرا بني يراه وحصل عليه وحنا صار عن ما أنا فهمين بوجودي أول عيان وحص مركا أنا وحنا كرا تسا له الكرا فايدة وحلو الكرا وقبضا ما أنت لقد ويب كرا له الكرا لا إن لقم بديه وأنا لا سميه برمو شيء وعي قلنا ولا وعي قلنا يبدأ هيرضى إفن هدين له استابيليتي yar maanta midna waxaan oran karaa meel badan wax ka jira stability waa in loo sameeyaa xirfado ay kula soo baxaan nolol maalmeedkooda oo kaga mashquulaan waxa kan ay ku mashquulsan yihiin. anigu taas aan oran lahaa. aad baad mahadsantahay maxamed. cabdilaahi xamza laftigiisu wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyarada inay badankooda qayilayaan. wuxuu kaloo ka dhawaajiyey in dhalinyaradii iska daa inay ku fakaraan wadankii inay nabad ka dhaliyaan, inay dhalinyaradii darbiyada fadhiyaan oo qaarna qayilayaan, qaarna makhaayadaha fadhiyaan oo ay maalin oo dhan kaga sheekeynayaan dowladii baa saatiri meel heblaasaa laga yiri, qaar ay ka sheekeynayaan ciyaaro iyo western counter wadamo hormarayo ciyaartooy lacag badan helaya. marka sidee u aragtaa adigu oo aad isleedahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa loo kicin karaa oo chiefkan ay imika way chiefsadeen? sidee adigu kula tahay in dhalinyarada boorka looga jafi karo oo mataqaanaa aleelaha la dhihi karo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u diyaar garoobeen in ay ka qayb qaataan nabadeynta wadankooda? waa maadsantahay xasan. sidaan kuu sheegay dhalinyaradu way ququban tahay. waxa kala ququbayna waa doorkii iyo yacnihii dagaalkii sokeeye wadankii ka dhacay wajiga xun lahaa ee qabyaalada badnaa bay ku kala ququmeen. allah yarxame maxamed siyaad barre waxaan
waqtigaas inkastoo aanan jirin waqtigii dowladdii waddanka ka talin jirtay maxamed siyaad barre haddana waxaan chance u helay in yacnihii taariikhda qaarkood aan dib u eego waxaan nasiib u helay cajalad oo record uu laga duubay maxamed siyaad barre oo waqtigii uu xeerka qoyska wixii loogu magac daray uu hirgelinayay wuxuu soo qaatay erey aada macnaha aan aada yacnihii shakhsiyan kule aadaa ula dhacay wuxuu yidhi waa laydinku shubay cidna idinkama shubin haddana waa laydinku shubaya macnaha waa dareemi karaysaa markaan xoogaha barnaamijkan yara i t-ga wax ka yara dhiganayay waxaan yara arkay barnaamijka computerka qaabka loogu duubi karayo computerka adagaa maamulaya adigaa ku duubaya barnaamijka ilaa adiga aada ka bedeshidna barnaamijkii computerka uu ku jiraya shaksiga biniaadankana waa dareemi kartaa waxa computerka laga keeno waa biniaadanka laga matelay waxaan uga socdaa oon erayadaas aan u soo qaadanayaa dhalinyaradu waxaa lagu shubay qabyaalad waxaa laga dhaadhacsiiyey war adigaa reer hebel ah adigaa landheera ah anigii adigaa is ah danteena waa macnaha mooyaane dan kale ma jirto haddaanan taydii ii wadan mid kale ma soconayso marka taas darteed baa waxay keentay macnaha intii yacnihii beenta ku socotayna inay macnaha wax waayaan intii kale macnaha xoogaa ninkii yara jeebka buurnaan uu soo horo weli uu dhalinyaradii sii wato oo yacnihii welina uu kusii bambuuninaya barnaamijkii qabiiliga ahaa anigoo uga faaidaysanaya barnaamijkan qaaliga ah dhalinyarada dabcan marka horta nabad la helo saan hore u sheegay ayaa wax walba la helaa markaasay aqoonta timaadaa caafimaad ku yimaadaa uu qofka yacnihii uu ka fikiraa horumarkiisii waddan baaba-ay oo sal ilaa macnaha ilaa baar uu macnaha baaba-ay macnaha qaabkii lagu soo dib celin lahaa macnaha waxay noqon kartaa in dhalinyaradeeda ay noqoto horta marka hore kow inay dhalinyarada horta midnimo samayso dhalinyaradaas qabyaalada macnaha lagu shubay ee laga faa'iideysanayo oo barnaamijka khaaska ah ee nin keligiis u dagaalamaya looga faa'iideysanayo horta in laga baxo laakiin sababta looga bixi kara ayaa waxay noqonaysaa in yacnihii loo sameeyo workshopyo macnaha barnaamijyo wacyigelina in lagu baraarujiyo macnaha dhalinyarada inay yihiin dadka kaliya iyaga inay dad wax qabsan karan yihiin inay cod iyo hadal ku leeyihiin wadankii inay dadka toosin karaan inay macnaha iyaga yihiin macnaha ubixi mustaqbalkii wadankan lahaa inay macnaha iyagu ay noqon doonaan hogaamiyaha dhabta ah ee wadanka laakiin haddaan midnimo la helin waxba lama helayo cabdillahi haddaan kaa dhex galo qofku markuu ku fakaraya inuu noqon karo for example oo kale madaxweynihii wadanka oo kale markaasaa la dhihi karaa laakiin dhalinyarada soomaaliyeed waxaynu ognahay majoritygood inaysan kuwa fakaraynba oo aysan kuba jirinba in aysan ku jirin dee in aleelaha soomaaliya wax ka noqon karo markaad wareysata nin walba wuxuu dhahay wadankan waxba kama soo socda anigu waa socda ma garan marka adigu sidee bay kula tahay in aynu dhalinyarada aada uga faa'iideyn kartaa oad isleedahay aad leedahay war wax wadankaaga kuu dhaama madaxweynihii wadanka waa adige iska dhig qorigan ama madaxweynihii wadanka waa adige qaadkan intaad ka kacdo ka qaybgal inaad wadankaaga dhisto waa ku mahadsantahay horta marka hore nin horta qaad u fadhiya horta waxba ma qaban karo ani horta taa ku baraarug dhalinyarada ma ahan inta keliya qaadka cunaysa yacni dhalinyaro fara badan markuu yacnihii dagaalkii sokay wadanka uu ka dhacay ilaa iyo waqti xaadirkan waa dabcan waa waqti ku siman 20 sano haddaysan ka badnaynba 20 sano waa la qaxayay ilaa alaanadaada wadankii laga soo qaxaa oo ay dhalinyarada ugu badan tahay dhalinyaradu waxay galeen wadamada shisheeyaha oo wadankan anaga joogno uu ka yahay Kenya inta faa'iideysata haba iska yaraato intii faa'iideysatay ee wax ka baratay yacni waxaa jirta wax qofka bini'aadanka hor yacni iskaga jira damiirku qofka bini'aadanka damiir buu leeyahay مثلا هذا هذا قف يرجع درسته وحقوق دفته يعني واحد دريم يساعده ضميرك وحقوقه واي قف كان كوجو درسنا اسكعل ضميرك محوتوس يا قف كان وحقوق دفته يعني dadka ضميرك dhalinyarada haday fariisatay oo ay seexatay waxa lagu toosin karaa baraarujin in wax loo sheego in la yiraahdo war heedaha war waxan nolol ma aha war waxan sidan si ma aha war niyo aqoontiina iyo macnaha kartidiina iyo macnaha kaalmeesta idinkoo macnaha rabbi tala saaranaya run ahaantiina yacnihii annaga diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo macnaha asluub ahaan iyo aqoon ahaan iyo dal ahaan iyo dhinac kastan ka burburnay macnaha dhalinyarada waxaa ugu badnaato yacnihii dhalinyarada
waxaasoo dhibaata oo dadkay ku dhacayaan مثلا marka dhinaca laga eego waxaa looga faa'iideysanayaa barnaamij kasta oo markaas jira waxaa keenaya barnaamijka markuu yimaado ka soo qaad marka nin qabqablaa markuu wadanka yimaado wuxuu la imanayaa fikrad dhalinyarada fikradii buu sheegayaa wuxuu sheegay in fikradaas uu ku heli karo faa'iido fara badan oo ninkii uu ku helay dhalinyarada ahaa laakiin waxaa u badan inta badan kuma raaco ninkan waa in adeerka raac laakiinse waxaa keentay macnaha inuu ninkan waa in adeerka raac sabab baa ka dambayso ah macnaha in ninkan macnaha wax loo sheegay oo wax loo ballan qaaday oo loo sheegay macnaha in mustaqbal uu isagu heli karo sida daraadid haddii yacnihii la helo waan ka xumahay yacnihii in horta la waayo nin siyaasi ah oo yacni xataa Soomaaliya intuu u soo kaco oo macnaha dhalinyaro macnaha u ololeynaya chance isagana oo ahaan lahayd dhalinyaro chance oo ahaan lahayd xataa nasiibkaasi waa la garan waayay oo dad inay ka faa'iideystaan war horta dhalinyaradiina kiciya oo iyagana wax tara xataa adigana wax tar laakiinse waxaa kaliya laga fikiray adigu say parliamentary macnaha ku noqotaa oo xubin parliamentary say wasiir ku noqotaa say saan ku noqotaa macnaha nin macnaha wadankii ama ka soo muuqdo ku noqotaa waxaas oo dhan laga fikiray laakiin lagama fikirin waxa dhabta ay jira macnaha ay ka dambeeya dabcan barnaamijkan qabiliga ee dhalinyarada macnaha lagu aafeeyay waa dareemi kartaa dawlad kasta oo la dhiso waxaana looga dhisaa wax la yiraahdo 4.5 bal 4.5 maxay yaa 0.5 ah yaa se macnaha 4 ka ah hadda lama kala yaqaan yani inta badan hadda dadka qurbaha u badan waa 0.5 kaas ba cid walba 0.5 kaas iska sheegataa marka barnaamijkan qabiliga ah ee dhalinyaradii macnaha laga dhaadhiciyay ee lagu duubay ee ilaa xadka macnaha gaarsiiyay in marka sheeko guud ay timaadana laga wada hadlo oo yani wuxuu doona ha ahaado tii khaaska ah dhabta aheed macnaha see dhibaatadan uga baxnaana macnaha in lagu kala tago waxa keenay waa soo noqon doonaa aad baad u mahadsantahay Xamsa waxaan rabaa inaan ayad soo su'aal weydiiyo Cabdullaahi ka dhawaajiyay Xamsa sidoo u arkaa wuxuu leeyahay Xamza Cabdullaahi walaalkan Cabdullaahi dhalinyaradu ha kacdo ha aaminto in ay noqon karaan mustaqbalkii wadanka waana mustaqbalkii wadanka waxa laga yaabaa inay noqdaan madaxdii wadanka dhalinyarada marka la sheekaysatay ku tiraado niyo madaxdii wadanka noqon kartaa fadhiga ka kac wuxuu ku leeyahay siyaasadda ma gali karo siyaasadda dadka waaweyn baa loogu talagalay markaas sidee adigu aad isleedahay dhalinyarada laftigeedu sideen ognahay xataa wadamada kale waxa mar walba kaca oo isbedel doonka keena waa dhalinyaro taariikhiyan hadaynu daba raaxno taariikhda wadamada adduunka oo dhan hadii taariikhdooda la keeno waxa isbedelka keeno waa dhalinyaro maxaa u diiday in la helo xataa ilaa yimika 20 sano ku jirnaa dagaal sokeeye weli lama arag urur dhalinyaro ah oo u ololanaysa in ay dhalinyaranimadii Soomaaliyeed ay midayso weli lama arag urur dhalinyaro ah oo leh warqabyaalad ma jirto oo waxaan qabyaaladan ka baxo dadkan waaweyn iyo dadkan siyaasiyiinta ay nagu shubeen ha ka baxa weli lama hayo marka sidee isleedahay waa lagu heli karaa xasan aad ku mahadsan tahay mar kaleeto Soomaaliya sababta ku mahadsan tahay programkan waxaan filayaa haddii aan ka badan su-aashaada weydiisay oo hal mid aan dhexgeliyo walaalkay maxamed wuxuu sheegay inuusan haynin de facti lagu samayn karo in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu soo dhalin rabo oo macnaha hadda xaalad ay ku jiraan si looga bedelo su-aal noocaas aad weydiisay wuxuu yiri wax hadda muuqda oo lagu bedeli karo online ma jirto runtii way jirtaa dhalinta Soomaaliyeed wax lagu bedeli karo waxa ninka dhalinyarada ah waxa lagu bedeli karaa asaga oo la ogsoodo inuu yahay ugu xiidanka horta ninka kaliya ee barnaamijka ka waraya horta inuu asaga nafsidiisa soo ogsoodo gaariga waa tirada laakiin marka la qiimeeyo dadka bini'aadamka marka la qiimeeyo waxa dhaca wadanka waxa iska mustaqbalka dhalinyaro dadka haweenka oo ka duwan haddii ay xukuumadan haddii ay taladan haddii ay horumariyaan dhalinyarada oo soo kacayso marka waxa jirto nidaam dhalinyarada adduunka ay leeyihiin
dhalinyaro marka la dhaho haddaan fiirasa wadamada Europeanka iyo Westernkaas waxaa jirto waxaa laga faa'iidaystaa dhalinyarada ageka ay jiraan 12 years ilaa 18 years haddaan fiirasad programmada adduunka waaweyn ee aaladan hadda horumartay waxaa keenay dhalinyara keentay dhalinyara la isku aruuriyey dhalinyara la baray caqligoodii saliimka ahaa laga keeneen iyo wax loo kala maamulay oo wax loo kala waday haddaan usoo laabto su-aasha hadda ad weydiisay oo ahayd dhalinyaradu sidee loogu sheegi karaa in ay siyaasadda ama ay noqon karaan mustaqbalkii wadanka ay noqon karaan dadkii xukumi lahaa wadanka waxaa midaas looga cadeyn karaa dhalinta Soomaaliyeed horta mid wax loo cadeeyo waxaa ka reeb wax ay ka cadeystaan nin kasta oo Soomaaliya maanta hadduu hamigiisa uu siiyo in uu wadan asaga uu xorriyad uu ku noolaado ama wadankii asaga uu ku noolaado oo maanta uu dhaho mustaqbalkaada saxda ah because waxaan ognahay wadamadan ay ku noolnahay Kenya ka mid ahaato ninka Kenyaanka maanta Soomaaliya wajar ku dhashay baris ku dhashay ama ku dhashay Soomaaliya ama ku dhashay Kenya ku dhashay certificate-kiisii la hayo istaagga ku dhashay leeyahay macna wax ka qaldanaysan jirin haddii nin maanta nin Kenyan sorry haddii nin Kenyan maanta ay wala hadlaan wax kale ma dhahayo waa dhahdo tawriya tuuliye waxaa laga wadaxay marka ninkii Kenya u dhashay Soomaaliya ahaa iyo saas uu leeyahay adiga oo Soomaaliya ka soo jeedo oo wadanka lagu koray ma noqon karaysid haddaan fiirno Afrika meesha hadda ku noolnahay adduunka hormaray waxaa la dhahaado Black American baa la dhahaa kama aragnahay waxaa taan baa la cadeynaya xamsa haddaan kaa dhex galo weli ma hayno dhalinyaro intii is abaabushay oo urur samaysatay oo tiri maanta annagu waxaanu isu taagaynaa beddelka Soomaaliya صح weli ma hayno marka adigu sidee kula tahay lagu heli karaa xasan taas waxaan arkay okay waan arkay dhalinyaro urur samaysatay dhalinyaro Soomaaliyeed urur samaysatay oo si fiican u shaqaysay laakiin haddana mid baa dhex qastay waqtiga maanta la joogo dhalinyarada hormaahan dhalinyarada maanta jirto wuxuu fiiriyaa maxaa interest aad helaysaa adiga danta adiga maanta aad helaysid maxaa mustaqbalkii ma fiirinayo reerkii ka dambeeya asaga ku xirnaa ama wala noqdo ama reer asaga u dhistay ha noqdo ma fiirinayo mustaqbalkaas dambe wuxuu fiirinayaa current now hadda maxaa kaga jira faa'iido dhalinyarada hadda waxay samaystaan NGO-yaal bay samaystaan waa dhalinyarada hadda NGO-yaasha samaystaan waa between age 20 ila 24 years إنجاز زماننا وعيش كده بالرياضة العقد كسوقانية وخرج درينية العقد الله كلام مجا قسم استماع في عمل كل إنسان لكن الدليل أجد معهم أدرنت في معهم إن أي وحقبت البيت معهم وحقدرت البنك نفسه وأصلا إنه كل على وقت السنتين أما وفعلا أصلا إنه مركز مكبشه ما أن إنه دم Soomaaliya wuxuu qabanayo marka ninka dhalinyarada Soomaaliya waxaa rabaa in uu soo fiirinin danta asaga kaliya ah ee uu fiiriyo wax kasta uu sameynayo danta Soomaaliyeed ee maanta taagan ee 20 sano wadankaadii ka soo ceyrisay waxaa jirta dhalinyaro badan oo wadankooda tagay 20 sano wadankooda 20 sano tagay marka masjid marka ku darsaday waxaa ka dilan niyada ka dilan asaga ka dilan because ninka dhalinyarada ah wuxuu niyad fiican istaadaad maanta fiiriso wadankan joogno ninka dhalinyarada soo joograa oo qashinka gornayo laakiin niyadiisa dhisan tahay because wuxuu istaa wadan ku faano calan baa taagan heestii wadanka marka la akhriyo السوق تاجيه كان السوق مركز تاجيه الآخر السوق كيسي سلامي إذا غير الدنيا جرت وفوق الدنيا ما أنت حافظنا يا بنيان الصوماليات دي هستي عالم كصومالي مركز كلها تبى تعتبر ناس منها واقع على ناس لكن ما أركزت من بنيان أو خيركم هستي سوق هذا ما هو حط بكرة تقول عليه نيجا
kasta waxaa waaye heestii la haystaa afku kala haystaa. xamse aad baad u mahadsantahay, waa isku soo noqon doonaa. maxamed baan rabaa inaan dib ugu celiyo. maxamedow, walaalkan xamse wuxuu ka dhawaajiyey in dhalinyaradii soomaaliyeed iska daa in ay wadanka nabad ka dhaliyaan, inay dhalinyaradii soomaaliyeed wadanka ay tagtaan ay sheegtaan oo ay yiraahdaan qaar war anigu Soomaali miihi American baan ahay, ama qaar ay yiraahdaan anigu nin reer Yurub baan ahay, ama ay qaar yiraahdaan wadamada dariska ee Afrikaanka ay ku nool yihiin ay sheegtaan. marka soo kaafi kala dheeridba ma aha in dhalinyaradii meeshii laga rabay iyo meeshii ay taagan yihiinba inay kala duwan yihiin. horta aad mahadsantahay, su-aashaasna waa su-aal muhiima, waana su-aal dhab ahaan u jirta. ifan waxaa jira dhalinyarada maanta, dhalinyaro badan aan weligoodba arkin calan Soomaali meel u ka babanayo, iyo dhalinyaro aan weligood xitaa arkin meel Soomaaliya la yiraahdo weligood baad doona ma arkin, waana dhalinyaro jirta 20 sano. ifan waxaa jira dhalinyaro iyagii dad sii dhalay dad oo meeshan jooga weligood ma arkin dhul Soomaaliyeed haday doonaan arkin calan Soomaaliya. suppose waxa ka dhacday halkan oo kaleeto, ifan halkan oo kaleeto waxa ka dhacday hadda kahor wadanka marka calanka hoos la rogayo galabtii ama la hoos loo dhigayo wadan kasta ba haday ifan sharciyan waa inuu istaaga qofku, dadka dhan way istaagayaan. waxa ka dhacday halkan dad Soomaaliyeed iska socda in calankii goorti galabtii hoos loo dhigay habeenkii meel xira ciidan ah ay dadka iska socdeen, dadkan wada istaageen oo la qabto la xiray. waayo weligood ma arkin calan hoos loo dhigay, calan la dejinayo, calan toona ma arkin baba. marka run ahaan waa wax jira, waxa kan ah inay dhalinyaradu sheegato wadanka ay markaa joogto. waayo dhalinyaradani ma arkin wadan, mana arkin calan, mana arkin dawlad. taana waxaan oran karaa war maanta dhalinyaradu waxay leedahay waalid, waxay leedahay dad waayeela. dadka waayeelka ah waa inay dhalinyaradii ku talagalaan si aan iyana uga halaabin, ummadda Soomaaliyeedna uga halaabin. loo sheegaa dhaqankii, loo sheegaa la baraa waxyaalo badan. ifan Soomaaliya ma wada ah meel waxbada ka dhacayso, waa in la keenaa Soomaaliya meelaha aan waxbada ka dhacayn, sida gobolada aan waxbada ka dhacayn, gobolada koonfureed, gobolada bari, meelaha aan waxbada ka jirin waa in la keenaa. ifan haddii xitaa aan la keeni karin waa in la ilaaliyaa dhalinyaradii in aanu dhaqankoodii guurin. dhalinyarada arkaysaa waa weyn 20 jira, af Soomaali ma yaqaano, dhaqan ma yaqaano, wax kale ma yaqaano. waxa la wada aragtay dhalinyaradii oo aad aragtay suwaalka wiilku ka dhacayo oo hadu doon wuxuu sitaa silis, hadu doon dhagaha u dalaalaba waana Soomaali. how can it possible? ifan dhalinyarada tani ma wada aha wax yar meeshu iskiisii, laakiin waxa geeyay waalidku waa inay dhalinyarada u sheegaan dhaqanka, diinta, waa inay u sheegaan inay ka yimaadaan Soomaaliya ay yihiin Soomaali. maxamed aad baad u mahadsan tahay. cabdilaahi baan barnaamijkeenu waxaan u malaynayaa inuu gabagabay yahay. waxaan rabaa inaan dhowr su-aaloodiina weydiiyo. cabdilaahi maxamed wuxuu ka dhawaajiyey in dhalinyaradii ay ka maqan tahay dowladnimadii oo aysan aragba dowlad iyo systemkeedii iyo qaababka dowladdu u shaqayso iyo faa'iidada ay ka helayaan iyo sida ay ugu shaqayn lahaayeen dowladda, inaan dowladnimada aysan dhalinyaradii ku jirin because of badankoodu dhalinyaradu inay qaan gaadhay qaar ay dhasheen dagaalkii ka bacdi iyo xilligii lagu jiray dagaalkii sokoeye, qaar xilligii dowladdu dhacday in ay yaryaraayeen oo mataqaanaayo dee ciyaal yaryar ahaayeen oo glass 1 ilaa glass 3 meelaha ay jireen oo aysan garanayn dowladnimadii. adigoo soo koobaya sidee baad is leedahay dhalinyarada loo fahansiin karaa dowladnimada qiimaha ay leedahay? aad baad mahadsan tahay. run ahaantii dowladnimada markuu wadanka dowladda uu leeyahay ama maamul uu jiro, uu qofkii meeshaas macnaha isagoo yar uu meeshuu ku barbaaro, wuxuu arkayaa uu dareemayaa kala dambeyntii, amnigii, hadduu khalad sameeyo macnaha in la qabanayo,
yacnihii in uu jiro macnaha maxkamado iyo yacnihii police station yacnihii maamulka aad ku dhex kurtid ama meesha macnaha wadan macnaha amaan ah xaqiiqda amaan baan islaada soo koobo haddii meel amaan uu ka jiro ammaankaasna macnaha adiga aad ku barbaartid oo la qabsatid waxay ku dhaxal siinaysaa maamulkaas meeshaas ka jira inaad ka heshid kala dambeynta waxa ay tahay iyo oo maamul wanaag wuxuu yahay waxaan oran karaa waxaa gabay waalidiintii mar haddaan la helin macnaha dhalinyaro dowladnimadii haddii aan anaga dowladeeni aynan helin oo ku garaadsanin macnaha wixii laga dhaxli lahaa wanaag ah inaan qaadano waxaan oran karaa bedelkeedii waxaa la waayay waalidkii oo gabay waajibaadkii guriga ee laga rabay ilmaha haddii aad ku barbaarisid macnaha nolol wanaagsan oo aad bartid kala dambeynta iyo nidaamka iyo diinta waxay tahay aad baad u mahadsantahay waqtiga oo inagu yar aad baad u mahadsantihiin daawadayaal barnaamijka intaasaan kusoo afmeerayaa waxaa barnaamijka igaga qayb qaatay maxamed axmed cabdi cabdulaahi aadan cali iyo xamse yuusuf jaamac barnaamijka waxaa inii soo daayay anigoo ah xasan maxamed xasan waxaa dhinaca farsamadana ka qayb qaatay siciid nadaara intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.